xulka kubadda cagta ee degmada Gaalkacyo ayaa ku guuleystay koobka degmooyinka Galmudug ee sanadka 2018 kadib markii ciyaartii finalka ay Rigoryaal uga adkaadeen xulka degmada Balanbale. ciyaartii shalay galab ka dhacday garoonka Cabdullaahi Ciise Stadium ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu tilmaamay mid kamid ah finaladii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa ee garoonkaasi ka dhaca. marka la eego goolasha la iska dhaliyay sida dadweynaha Galmudug ay indhaha ugu hayeen tartankan oo muddo ku dhow 2 toddobaad Gaalkacyo ka socday ka hor intaysan bilaabin ciyaarta kama dambaysta. waxaa garoon ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacyo, wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta ee Galmudug iyo marti sharaf kale oo isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa. xulka Gaalkacyo iyo Balanbale oo ciyaartii u dhaxaysay ahayd mid aad u adag, waxay ku bilaabatay kubad weerar iyo weerar celis ah. sidoo kale waxaa laga dheehan karay labada degmo ciyaartoydooda sida ay ugu soo diyaar garoobeen ciyaarta kama dambaysta waxayna soo bandhigeen kubad ilqabad leh. qaybtii hore wax gool la iskama dhalin oo waxay ciyaartu ku soo ilaatay eber. qaybtii dambe markii ay sidaaba u bilaabatay daqiiqadii ugu horeeyay ayaa xulka degmada Balanbale waxay la yimaadeen goolka koowaad ee ciyaarta, inkastoo goolkaasi uu muran dhaliyay kadib markii ciyaartoyda degmada Gaalkacyo ay ku doodeen kubaddu ay hoosteeda ahayd isla markaana ay gacan ku sii dhacday. si kastaba cabashadaasi garsooruhu waxba kama soo qaadin oo waxa uu ku adkaystay in goolkaasi uu yahay mid sax ah. ciyaarta ayaana noqotay gool iyo waxba. daqiiqada yar kadib waxaa ka arkacas loo taagay xidiga qadka dhexe degmada Gaalkacyo lambarka 8 kaasoo ciyaarta laga saaray, waxaana xulka degmada Gaalkacyo ku soo koobmeen 10 ciyaartoy. ciyaarta oo dhamaad ku dhow ayaa degmada Gaalkacyo la timid goolka barbardhaca, waxaana ciyaartu ay guud ahaan ku soo ilaatay gool iyo gool. ugu dambeynna waxaa labada degmo lagu kala saaray gool kulaadyo, waxaana guusha 4-3 ay ku raacday degmada Gaalkacyo oo sidaa ugu guuleysatay koobkii degmooyinka ee Galmudug. intaasi kadib ayaa mas'uuliyiintii xiritaanka tartanka ka soo qayb galay oo ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Buqaari iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ay gudoonsiiyeen kooxda degmada Gaalkacyo koobkii quruxda badnaa iyo sidoo kale abaalmarinadii kale oo labada degmo ee Balanbale iyo Gaalkacyo la gudoonsiiyay. xalay ayaa sidoo kale xaflad lagu soo xirayo tartanka waxaa lagu qabtay xarunta Indian Ocean oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Buqaari iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ay khudbado ay kaga hadlayeen tartankan xiisaha badan ay halkaasi kula hadleen dadweynihii ka soo qayb galay. ka yimid in dhamaantood maaragtay ay isbarteen oo berrina degmooyin kale isla tagi doonaan sida hadda iskula noolaadeen degmada Gaalkacyana ee degmooyin kale iskula noolaan doonaan. runtii wasaaradda waxaan u sheegaynaa in maaragtay degmooyinka oo dhan maaragtay ciyaarahan xilliba mar lagu qabto si degmo walba ay u samayso baraarujinteeda iyo hankeeda. reer Gaalkacyo koobka ayaga dhigeen waa reebteen, degmo walbana waxaa laga rabaa in sidaas oo kale ay u reebato koobkeeda runtii oo markii magaaladeeda lagu qabanayo ee ayada maaragtay hanato koobkeeda. taa waxay tahay maaragtay dhiirigelinta iyo baraarujinta dhalinyarada maaragtay meesha joogta oo dhan looga baahan yahay. runtii sida aad la socotaan Soomaaliya hadda waayadan dambe 2 sano u dambeysay waxaa ka dhacay tartanka ciyaaraha ee maamulada. labadii jeer horeba waxaan filayaa in dhalinyarada inta badan laga qaaday meelo kale ama ayagoo aan saan oo kale loo tartansiin rag intii la xolay la geeyay. taasna maaragtay ay nooga timid haddaan reer Galmudug nahay in aan ku soo qasaarnay oo maaragtay nalaga badiyay. laakiin maanta waxaan haysanaa libin oo maaragtay waxaan aad ugu mahadcelinayaa macalinka noo yimid oo maaragtay kooxda kala xulaya oo aad iyo aad maaragtay loo rabo in kooxdaas uu soo xulo. wasaaraddan aan u sheegayna in maaragtay ugu dhaqsaha badan ay tababar ugu furto ciyaartoydaas. inaan maantay markhaati ka noqonno tartan aad iyo aad u xiiso badan oo dhex maray labada degmo ee ku soo baxay finalkii ee dowlad goboleedka Galmudug waa degmada Gaalkacyo iyo degmada Balanbale. waxaan leenahay labadoodii waa guuleysteen. guusha ay gaareen ma ahan guul ay kaligood gaareen, waa guul ay Galmudug iyo dadweynaha dhan gaareen. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo degmada Gaalkacyo oo hanatay koobkii oo aan hanan kaliya koobka laakiin ku guuleysatay koob kale oo ah martigelinta ciyaarta. maanta markaan garoonka joogno waxaan dareemaynay in xaafadaha magaalada Gaalkacyo ay kala taageersan yihiin kooxaha. marka aniga waxaan aad iyo aad ula yaabanaa maadaama reer Gaalkacyo raalli ha noqdeen Balanbale qaybtii koowaad ee tartanka maanta iyaga aad u sareeyay. marka taageerayaal aad iyo aad u fara badan ay haysteen
madaxweynuhu ila fadhiya waxaan ku yidhi madaxweyne reer balanbal miyaa magaalada jooga marka wuxuu ugu yidhi ma joogaan xaafad gaalkacyo ka tirsanaa taageersan sababtu maxay tahay sababtu wuxuu ugu yidhi waa xaafaddii martigelisay marka horta waxaa leedihiin shahaado sharaf kale oo ah martigelinta reer gaalkacyo waa tartankii ugu horreeyay noociisa ee loo qabto degmooyinka galmudug waxaana lagu tilmaamay mid ka mid ah tartamadii ugu fiicnaa ee lagu qabto deegaanada burhaan cabdulaahi gool FM gaalkacyo.